Maydh mid ka mid ah magaalo xeebeedyada ugu qadiimsan ee ku yaala Somaliland ayaa lagu tiriyaa ana taariikhda lagu qoray inay tahay magaalo xeebeed qadiimi ah oo lagu qiyaasay inay jirtay ku dhawaad 900 sano balse ma aha taariikhda rasmiga ah oo way ka weyn tahay intaasi Jaamac Dhunkaal oo kula kulmay xeebta Maydh ayaa ila wadaagay taariikhda intuu ka soo gaadhay xeebta Maydhna waxay ahayd marin ganacsi waxaana ay ahayd xeeb laga dhoofiyo xoolaha taasi oo loo dhoofin jiray wadamada Carbeed ilaa 1980kii waxaana ay dhacdaa waqooyiga gobolkaasi Sanaag ku dhawaad qiyaastina waxay magaalada Cerigaba isu jiraan ilaa 90 kiiloomitir aniga horta taariikhdaas way ka weyn tahay saxaar baa markii hore leeyahay jiradu waxa uu manayaa jiradu ilaa 900 dabadeed halka waxay noqotay dabayl dad dambe oo waalidkooda wax ka garanayo halka yiil dabadeedna dooyad tibir sida baa halka iman jiray dabayshu markay soo dhacdo bay barhoosay ka qaataan markaas waxa loo oran jiray xayal laaxiis jaamac jaleeka oo dugsi ah bay gali jiray did odaya oo yaani odaya oo meesha oday ka ahaaba maalintii dambe soo saal tagay halkuu yid mase waa ceel dabayshii dhacaysay halkaa ku dhacaysay sheekh ee asabka ahayda barhoosiga dooyaa u qaadaysay waa ceel maalintii dambe yidhi goortii laba dhaqaaqday walaxaas xayal laaxiis dambe kaama yeedho arareen baa la yadhi togan weyba afka ku haysaa carar ka yimaad ee marka ku bowgalaysa soo taagona buuqyadaa waaweyn daad kaga soo noqdaa halkan uu maraadee waa si dhaaray anigu markaa 60 baan soo galay magaalada dooyaha ima jiray adan baa markaa furay adan baa furay oo dadku waxa ka soo iibsan jiray waa ariga la jeeday oo dadku u dhoofi jiray marka dad aan baasaboor balahay baa dooyaha lagu guri jiray waa adan tagi jiray oo ka shaqaysan jiray adan iyo toban markaas ku mid bay halkaas labada dooyooda yimaada wadanka harqiyaan magaaladu waxay magaalo dad yar jooga oo kooban yahay dadkana deertay maarta fidaya ku dhaqmay hadii aan la kuuray magaaladu waxay inta xeebtaay inta iyo bay ahay kuwa barka magaalada laga soo gulo Dubai anta laga soo galo Dubai oo xagga badda ka xigana waaba jirtay dhawaan baa markaa dabadeed dadku inta soo faacsaday dusha la degay meelaha la soo raacay laymankaas soo dhan ay jireen wana xeeb facweyn oo u baahan maalgashi waxaana ay ahayd bariisamaadkii mid ay munaafacaadsadaan dadka deegaanku balse maanta waa ay ka duwan tahay xeebtii bariisamaadkii sida uu qabo oday jaamac dooyaan haran sidaas ay ahaayeen barroosiga isku xidheen sidii tanadii arruur baa haydeen markii wadanka berbera iyo la soo xidhay ilaa xiisiyo markuu hafurad hadda arkayde yaabinahay bidilida arbeedo kallu doonaya baadantii inta way ka iman jiray laakiin baa mustari marmar waa laga yaabaa ali ama laba dooyo in laga raro maaragtay arafada iyo halka oo la geeyo meesha yaman laakiin wax baa mustaro kale ka jooga dooyaha kalluunka doonaya ma yar yar waana halkoo kasta goortiisa ku soo dhaafnay arabtii fadhiday oo kale baa yimaada waxay ahayd dekad wax laga dhoofiyo waxna laga soo dejiyo balse maanta labadaasi way ka aradan tahay xamsada baare telefishinka RTN Maydh mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac